daawadayaasha ku xiran janalka Som 24 ee inooga bartay inaan u soo gudbino warbixinada iyo wararka ku saabsan dhinaca iyo aflaanta iyo musalsalada iyo sidoo kale xaaladda guud ee dalka iyo wararka ciidamada. markanna waxaan idiin soo qabanay oo aan idiin wadnaa warbixin ku saabsan musalsalkii jacaylkii kirada ama Love for Rent ama Turki ahaan loogu yeero Kilarik Aski. waa musalsal jacayl taxana ah oo markaasi goorsii horeysay laga sii daayay telefishin dalkaasi Turkiga ku yaala ee loo yaqaano Star TV 19 June sanadkii 2015 ilaa waxa markaasi filimkan la sii deynayay 20 Janaayo 2017 waxa uu ahaa mid ka mid ah taxanayaasha ama musalsalada ugu xiisaha badnaa ee laga sii deynayay telefishinada dalkaasi Turkiga. waxaa sidoo kale filimkan jacaylkii kirada aad looga xiiseeyaa gudaha dalka Soomaaliya. haddaba waxaynu markaasi idiin soo gudbinaynaa macluumaad ku saabsan dadka jilayaha ama jilayaasha musalsalkan jacaylkii kirada iyo qisada filimkan waxa ay ku saabsan tahay. marka aynu ka hadleyno musalsalkan jacaylkii kirada waxa markaasi qisada uu ku saabsan yahay gabar la yiraahdo Devna Topal iyo waliba Umar oo markaasi jacayl uu ka dhaxeeyo. waxa markaasi ay ka bilaabanaysaa Devna Topal oo markaasi ka soo jeeda qoys faqri ah oo ka shaqeynaysa maqaayad ayaa waxa markaasi maalin maalmaha ka mid ah ay arkaysaa Umar oo markaasi la kulmay isla markaana si lama filaan u dhukanaya isagoo markaa ka cararaya guur ay markaasi waalidkiisa qaarkood ay doonayeen in uu markaasi guursado. waxana markaasi arkaya Neerman oo iyadu ah eedadii oo uu qabo adeerkii, taasi oo markaa doonaysa in ay qaadato hantida Umar ee awowihii ugu talagalay. waxana markaasi ay heshiis la galaysaa gabadhan Devna Topal oo ay kula heshiinayso in markaasi ay jacayl ku beerto Umar muddo 6 bilood isla markaana ay kaga baxda jacaylkaasi si ay iyadu markaasi lacagta dultaala guurka Umar ay markaasi uga faa'iido. Devna ayaa markaasi waxa haysta caqabado ay ka mid yihiin in markaasi walaalkeed lacago uu ka qaatay qolyo ay markaasi ka doonayaan lacagtaasi oo gaaraysa 200,000 oo liraha dalka Turkiga ah. Devna ayaa waxa markaasi ay maareysaa nolosha ayeeyadeed iyo sidoo kale walaasheed yar iyo walaalkeed. hooyadeed ayaa markaasi iyada goor hore ka tagtay, aabaheedna waa uu geeriyooday. waxa markaasi ay doonaysaa sidii ay walaalkeeda u caawin lahayd oo lacagtaasi lagu leeyahay ay uga bixin lahayd. Neerman ayaa waxa markaasi ay keenaysaa lacag gaaraysa 400 oo liro oo ay markaasi doonayso inay siiso. hase yeeshee waxay ka qaadanaysaa lacagtii ay u baahneed oo ahayd 200,000 oo liro. intaa kadib waxa markaasi fursad laga siinayaa shirkadda ay wada leeyihiin Umar iyo Deniz oo markaasi ah dad saaxiibo ah. shirkadaasi oo iyadu markaasi soo saarta kabaha noocyadooda kala duwan. waxana markaasi ay kalkaaliyo u naqanaysaa Umar oo markaasi muddo kadib ay isku soo dhawaanshahooda waxa markaasi ka dhalanaya jacayl oo Devna waxa markaasi ku dhacaya arin lama filaan ah oo jacayl ay u qaadaysaa Umar. waxa sidoo kale Umar uu isna jacayl u qaadaya gabadhan Devna ee markaasi shirkadiisa ka shaqeynaysa. Neerman ayaa iyaduna markaa doonaysa in Umar jacayl lagu beero isla markaana looga baxo. jacaylkoodii ayaa noqonaya mid dhab ah oo markaasi waxa ay gaarayaan heer midba midka kale uusan ka maarmi kareenin. markii muddo ay jacayl soo wadaan oo heerba heer ay soo maraan oo meelba meel ay ka soo gudbaan, ugu dambeyn waxa ay soo gaarayaan guur oo waxa ay doonayaan in markaasi ay isguursadaan. Devna ayaa Umar u sheegaysa
sababta ka dambeysa in markaasi xiriir dhexmaro oo ay isbartaan. Cumar sababtaasi markii ay u sheegto waa uu ka caroonayaa oo dalka Turkiga waa uu ka tagayaa. Waxa markaasi uu aadayaa dhinaca iyo dalka Talyaaniga. Markii uu in muddo ah ku maqnaa halkaasi isla markaana Dafna ay adkeysan weysay oo ay ogaanayso in aysan Cumar jaceylkiisa ka maarmeynin. Cumar ayaa ka soo laabanaya Talyaaniga oo waxa uu dib ugu soo laabanaya magaalada Istanbul. Waxa markaasi uu ka shaqo bilaabayaa shirkadda ay markaasi Dafno ka ahayd maamulaha qaybta logistikada. Intaasi kadib Cumar iyo Dafno ayaa dib u bilaabaya jaceylkoodii. Waxaana markaasi ay u sheegaysaa cidda ka dambeysay jaceylka markaasi Cumar ee lacagta ku bixisay inay tahay Marwa Neermaan oo eedadii ah. Cumar ayaa arintaasi waxa uu la wadaagayaa oo uu u sheegayaa adeerkii Najmi ayaa markaasi waxa uu sidaa ku furayaa Marwa Neermaan. Halkaasi ay ku weynaysaa saygeedii iyo sidoo kale lacagtii ay quudareynaysay oo ay doonaysay. Ugu dambeyn Cumar iyo Dafna ayaa isguursanaya. Sidaasi ayay farxad ku helayaan. Waxaana markaasi ay korsanayaan gabadhooda yar. Qisada filimkan ayaa sidaa ku soo gabagabeynaysa oo lamaanihii jaceylka ee waqtiga dheer soo jiitamaya heerarka kala duwan soo maray sidaas ayay isku helayaan ugu dambeyn. Haddii aynu wax kaga sheegno dadka filimkan jilaya ee jilayaasha ah iyo waliba filimkan shirkadda soo saartay iyo markaasi TV-ga laga deeyay. Haddii aynu ka hadalno filimkan waxa markaasi raaytinka silsilkan iyo jaceylkii kirada ama Love Ferrenti waxa markaasi dhinaca iyo raaytinka iska leh Merik Azemi halka director uu ka yahay Metin. Waxaana markaasi uu yahay filim Turki ah oo lagu jilayo magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga. Waxa soo saaray Muge Turali Park oo markaasi soo saartay. Waxa sidoo kale laga sii daayay telefishinka Star TV ee dalkaasi Turkiga 19 June 2015 ilaa January 20 2017. Jilayaasha filimkan ee wax ka jilaya ayaa waxa markaasi ay yihiin Baris Ardug oo ah markaasi ku jilaya Cumar ku jilaya halka Elzin Zangu ay ku jilayso Dafna oo markaasi ku jilaya Sinan Onur Buyuktob. Waxa markaasi uu ku jilaya Koray oo ah markaasi nin aad u cajaa'ib ah oo filimkan ka dhex muuqda isla markaana ah sawir qaadaha shirkadda soo saarta kabaha ee Cumar iyo waliba Sinan ka dhaxaysa. Waxa sidoo kale markaasi filimkan wax ka jilaya Sinem Ostug oo iyadu Yasmin loogu yeeraya halka Nergis Kumbazar ay markaasi ku jilaysa Neermaan oo qisada filimkan qayb weyn markaasi kaga jirta. Ulgen waxa uu ku jilaya halka Defrem Yalsin uu ku jilayo Denis Alifkan ay ku jilayso Fikrad Galo. Ismail Karagos waxa uu ku jilaya Sugro waxay ku jilaysaa Turkan Tobal halka Karim Firtina uu ku jilayo Ismail. Filimkan waxa ku jira asxaab badan oo halkan aan lagu soo koobi kareynin. Waxaana ka mid yahay aflaanta ugu xiisaha badan ee markaasi dalkaasi Turkiga laga jilay. Waana filim inta badan ay markaasi dadka Turkida ah ay aad u xiiseeyaan oo ay la dhacsan yihiin. Ninkan magaca Cumar ku jilaya ee la yiraahdo Baris Ardug ayaa waxa markaasi uu yahay nin ku dhashay dalkaasi Switzerland hase yeeshee asalkiisa waa Turki. Waana actor markaasi aflaanta jila waxana uu markaasi jilay aflaan dhowra oo uu ka qayb qaatay. Gabadhan iyaduna Dafna ku jilaysa ee Elsin
sanguul lagu magacaabo waa aktarad markaasi turkish ah oo dhinaca moodalkana aad markaasi ku wanaagsan. haddaba filimkii jacaylkii kirada ama love Florenti Kiralik Aski halka ayuu nagaga egyahay.